بسم الله الرحمن الرحيم. habeenimo isniin ah oo talaado ay soo galayso labada bisha March sanadka 2026 oo ku beegan 13 bisha Ramadaan sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waa Iran oo caawa si rasmi ah ugu dhawaaqday in uu xiran yahay marinka Hormuz isla markaasna markab kasta oo maraya halkaasi ay beegsan doonaan. Trump oo bilaabay la tashi ku saabsan in ciidamo dhulka loo diro Iran si ay u fuliyaan ujeedooyinka Washington ee dagaalkan. ciidamada ilaalada kacaanka iyo kuwa ismiidaamiyaha ee Basij oo durba shaaciyay in ay sugal la yihiin ciidamo soo gala xuduudaha waxaana wacd ay ku mareen in Iran ay noqon doonto qabuurihii askarta duulaanka ah. haddaba sidee qorshahani loo hirgelinayaa waxaan idin haynaa warbixin iyo falaaqayn. Mareykanka oo qirtay askar kale oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga oo ku dhaawacmay dalka Bahrain iyadoo sidoo kalena ay korortay geerida askarta Mareykanka ee dagaalkan. ciidamada Qudus ee Iran oo iyaguna ku dhawaaqay digniin culus oo ah in ay fulin doonaan weerar dibadda ah sida gudaha Mareykanka. Trump wuxuu galabta dadka reer Iran ugu baaqay in sababa amni guryahooda aysan uga soo bixin laakiin caawa sidan ayaa loogu jawaabay. NATO oo war ka soo saartay inay ka qayb galayso dagaalkan ka aloosan bariga dhexe iyo in kale. Erdogan oo ku eedeeyay Israa'iil inay mas'uul ka tahay colaadda ka aloosan gobolka. Dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa. xubno ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ay ku dhaawacmeen weerar Iran ay ku qaaday dalka Bahrain halkaasi oo goordhawata laga maqlay seeriga digniinta ka bixiya. Mas'uulkan ayaa xaqiijiyay in laba ka mid ah shaqaalaha ay ku dhaawacmeen weerarkaasi xaaladooduna ay tahay mid degan waxaana uu sheegay in loo fidiyay daryeel dhanka caafimaadka ah. waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sidoo kale qiratay in geerida askarta Mareykanka imika ay gaartay 6 inkastoo Iran ay sheegayso tiro intaasi ka badan oo ah ilaa iyo 500 oo askari dhimasho iyo dhaawac inay ugu geysatay weerarada ay wado. wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa waxa uu soo xigtay fariin ka timid waaxda amuuraha dibadda ee Mareykanka oo sheegaysa in safaaradda Mareykanka ee Kuwait lagu weeraray 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn. warbixinta ayaa sheegtay in weeraradaasi aysan sababin wax khasaaraha sida hadalka loo dhigay oo nafeed. dhanka Iran ciidanka Iran ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay soo rideen 7 diyaaradood oo casri ah sida lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidanku uu lahaa cadowga kuwaasi oo lagu beegsaday qaybo ka mid ah dalka. ciidanku wuxuu intaa ku daray in guud ahaan ay burburiyeen 29 diyaaradood tan iyo markii dagaalku uu bilowday. isla wararkan ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo yaqaan IRGC ayaa ku dhawaaqay in 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn ay ku beegsadeen markab shidaal oo ay ku tilmaameen inay leeyihiin xulafada Mareykanka xilli isku dayay sida warka lagu yiri inuu sharci darro uga gudbo marinka Hormuz. bayaankan la soo saaray caawa ayaa lagu sheegay in markabka oo lagu magacaabo Athena Nova uu dab qabsaday intii marinka uu ka gudbayay. war culus oo kale oo Iran ka soo yeeray ciidanka Islaamiga ah ee ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa ka digay in Mareykanka mar dambe ammaan uusan ahaan doonin iyadoo ay socdaan dagaalada ka aloosan gobolka bariga dhexe. ciidankaasi gaar ahaan qaybta Qudus ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka dawladda Iran waxay ku sheegeen xigasho maalmaha farxadda leh ee cadowga way dhamaadeen isla markaasna ammaan ma heli doonaan meel kasta oo dunida ka mid ah xitaa guryahooda. fariintan ayaa loo qaatay inay tahay in ciidamada Qudus weerar xitaa ay ka fulinayaan gudaha Mareykanka. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay 2 ilo wareed ah oo dhanka badda oo sheegaya in markabkii shidaalka
siday ee Athena Nova uu istaagay marinka Hormuz kadib wararka ku aadan in laba dayuuradood oo Iiraan ay leedahay lagu weeraray. Waa tahay warka marka laga gudbo war weyn ayaa caawa soo kordhay. Iiraan waxay ku dhawaaqday inay gebi ahaanba xirtay marinka Hormuz. markii hore wuxuu ahaa bacdama marinku yahay laba qayb, qaybna Iiraan ay maamusho, qaybna Cumaan ay maamusho. qaybtooda ay Iiraaniyiintu markii hore xireen oo waxay maraakiibta weydiinayaan meesha u socdo markabku iyo cidda laga leeyahay iyo cidda iskale. laakiin hadda waxay ku dhawaaqeen gebi ahaanba inuu xiran yahay marinka Hormuz. warbixintan ayaa goordhaweyta waxaa soo saaray ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga, waxaana ay sheegeen in ay beegsan doonaan markab kastoo isku daya inuu ka gudbo halkaasi. waxay kaloo sheegeen in hadda kadib ay duqayn doonaan dhuumaha shidaalka, kuwaasi oo ay sheegeen in aysan markaasi meel walba ay tahay beegsan doonaan. waxaana yidhahdeen waxaan go'aan naga ah in gobolka inaba haba yaraatee wax shidaal ah aan laga dhoofin. xaaladdan faraha ayay kasii baxaysaa. isla wararkan Iiraan ayaynu ku soconne, Iiraan waxay ku eedeysay Israa'iil iyo Maraykanka inay maanta weerar ku qaadeen xarunta nuclearka Natanz, halkaasi oo horey loo beegsaday dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii Juun sanadkii 2025. madaxa hay'adda tamarta atomikada Iiraan Maxamed Islaami ayaa warqad ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA waxa uu ku sheegay in nidaamyada sida hadalku u yiri dambiilayaasha ah ee Maraykanka iyo Israa'iil ay mar kale weerareen xarunta Natanz, laba weerar oo ku tilmaamay kuwa arxan darro ah. dhinaca kale madaxa hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA Rafael Grossi ayaa galabta sheegay inaanay jirin wax tilmaamaya in xarumaha nuclearka Iiraan la beegsaday tan iyo markii weerarada Maraykanka iyo Israa'iil ay bilowdeen Sabtidii. laakiin warkan waxaa ka dambeeya warka Iiraan. iminkana Ankara, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ee dalkiisu ay tahay in la gaaro xabad joojin degdeg ah, isla markaasna la furo wadahadallo dhanka siyaasadda ah. hadalkan ayuu ka jeediyey galabta munaasabad afur Ramadaanka oo ay yeesheen xubno ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo horumarka oo lagu qabtay magaalada Ankara. Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu la wadaagayo xanuunka shacabka Iiraan, isagoo muujiyey murugo ku saabsan dhibaatada rayidka iyo carruurta soo gaartay. wuxuu xusay in dadaalada diblomaasiyadeed ay tahay tan kaliya ee colaadan looga gudbi karo. laakiin waxa uu yiri waa haddii la rabo miiska wadaxaajoodka in la isugu yimaado. wuxuu ku eedeeyey Israa'iil xiisadan inay ka dambayso, waxaana markaasi uu sheegay in dalalka Khaliijkana saameyn arrintan ay ku yeelatay. isagoo hadlaya wuxuu yiri xigasho nasiib darro, natiijadii la rabay kama soo bixin miiska wadaxaajoodka. kicinta dhiigdaadintan iyo qalalaasahan waxaa sababtay Israa'iil. xiisadan waxay isku bedeshay dagaal aad u kulul. walaalaheena dalalka Khaliijka ayaa sidoo kale si xun ay u saameeyeen dagaaladan iska soo horjeeda. waxaan eegi doonaa goordhow warbixinta la xiriirta NATO dagaalkan ma ka qayb geli doontaa. waxaan kaloo idiin haynaa Maraykanka madaxweynihii, xogayihii dagaalka iyo xogayihii arrimaha dibadda oo warar iskhilaafsan ka sheegaya suurtagalnimada Maraykanka in ciidamo uu diro gobolka Bariga Dhexe. waxaan kaloo idiin haynaa ciidamada baasiijka iyo kuwa kale ee ilaalada kacaanka islaamiga ah Iiraan oo leh ciidamadaas waa masuul la'anahay xuduudda goormay soo geli karaan. sheekooyinkaas iyo falaqayn arrimahaasi ku aadan intaan u gudbin waxaan isku soo laabanaynaa aan ku hakanno qadar xayiis. soo dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag sheekooyinka Maraykanka iyo ciidamada ay qorsheynayaan in loo diro Iiraan iyo warar iskhilaafsan oo dhanka Maraykanka ka soo baxay intaan u gudbin waxaynu eegaynaa warka la xiriira NATO dagaalkan ma ka qayb geli doontaa. xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Mark Rutte ayaa sheegay inaysan jirin wax qorshe ah oo NATO uga qayb qaadanayso dagaalka ka socda Bariga Dhexe ee ka dhanka Iiraan, inkastoo uu amaanay
sida hadalku yiri tallaabooyinka military ee Mareykanka iyo Israa'iil isagoo la hadlayay telefishinka Jarmalka laga leeyahay ee ARD ee magaalada Brussels. Rutte ayaa sheegay inay aad muhiim u tahay waxa Mareykanku sameynaya iyadoo la kaashanaya Israa'iil si buu yiri si loo wiiqo awoodda Iran ee horumarinta hubka nuclearka iyo gantaalada balastiga. Si kastaba ha ahaatee wuxuu cadeeyay in NATO aysan ku lug yeelan doonin colaadda isagoo yiri ma jiraan gabi ahaanba wax qorshe ah oo NATO loogu jiiday arrintan ama ay qayb inay ka noqoto. Waxa inta uu ku daray in wadamo xubno ka ah NATO ay si gaar ah u taageeri karaan dadaalada Mareykanka. hagaag wararkii caawa ama barnaamijka wararka caawa waxaan idinku soo gudbinay war degdeg ah markaas soo baxay oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu leeyahay meesha kama saarayo in ciidamo dhulka aan u dirno Mareykanka. Arrintan waxa leeyahay gudaha Mareykanka durba waxay ka dhalisay dood aad u adag. waa la kala hadlay. haddaba waxa isna goor dhow ta hadlay xogayaha dagaalka ee Mareykanka aynu eegna warka uu sheegay. Pete Hegseth ayaa waxa uu sheegay in Washington aysan wax ciidamaha u dirin gudaha Iran iyadoo qayb ka ah weerarka wadajirka ah oo ay fulinayso Israa'iil, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay diyaar garowga Mareykanka ee in uu dagaalku sii socdo ilaa heerka ugu dambeeya, isagoo xusay in dagaalkan Sabtidii bilowday uu socon karo qiyaastii 6 toddobaad. waxaana markaasi la sheegayaa in hadal ka horreeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in ay leeyihiin 4 ujeedo oo Iran laga leeyahay. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay tan hore inay tahay burburinta awoodda gantaalada balastiga ee Iran. waxa inta uu ku daray tan labaad inay tahay inay si buuxda u baabi'in doonaan awoodda ciidanka badda ee Iran. tan saddexaad wuxuu sheegay inay doonayaan inay taageeraha ugu weyn waa sida ku yiri argagixisada adduunka weligeed aysan helin hub nuclear oo ula jeedo Iran, iyo ugu dambeyntii in nidaamka Iran uusan awoodin inuu hub siiyo ama maalgeliyo kooxaha hubaysan ee ka baxsan xuduudiisa. Trump isagoo kooxahaasi ula jeeda kuwa bariga dhexe ee ay taageerto Iran, Hezbollah, Lebanon, dhaqaaqyada Falastiiniyiinta iyo Xuutiyiinta ayaa ka mid ah. waxa isna hadlay goor dhaweyto xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio. asna wuxuu leeyahay inkastoo go'aanku isku leeyahay madaxweynaha Mareykanka oo ah taliyaha guud ee ciidanka, laakiin haddana wuxuu leeyahay qorshaha naguma jirto. wuxuu kaloo difaacay weerarka Iran lagu qaaday. saxaafadda ayaa waxay weydiisay maxaad u weerarteen Iran? wuxuu yiri ka warram haddii soo weerari lahayd. waayo wuxuu yiri waxay qorsheynayeen in weerar ay soo qaadaanba. wuxuu kaloo ku andacooday haddii Israa'iil ay weerari lahayd Iran annaga ay soo kalena weerari lahayd buu yiri, khasaaraha ayaa ka badan lahaa, marka inaan ka hortag samayno qasab bay nagu ahayd buu yiri. haddaba sheeko waxa noo soo socota xiise leh oo ku saabsan baaq reer Iran uu jeediyay Trump oo si la yaab leh looga jawaabay, laakiin sheekadan aan ku soconno gaar ahaan qorshaha ciidanka. waxa la leeyahay horta Mareykanka ciidankiisii qatarta ahaa oo halista ahaa waa ciidamada dagaalku ku qabsaday Ciraaq iyo Afghanistan. marka laga tago tiknoolajiyadan diyaaradaha wax duqeeya oo ayaga laftigooda hadda dhibaataba ka timid oo galabta aynu arkaynay ama saaka aynu aragnay Kuwait wixii ka dhacay, inkastoo Mareykanku ay leeyihiin ciidamada Kuwait baa soo riday diyaaradahan si qalad ah, laakiin Iran waxay leedahay diyaaradaha anaga soo ridnay. waxa leeyahay marka halis weyn baa jirta. Iran waxa leeyahay haddii nidaamyada difaaciyada ay gabi ahaanba la burburiyay ama hawada Iran la maamulayo hal gantaal ma soo tuurteen, laakiin sababta gantaalada u soo garaacaysa oo hadda anagoo barnaamijka ku jirna laga soo warinaya Bahrain iyo Kuwait seeriga degneeta ka bixiya gantaalada waxay tahay baa leeyahay Iran awooddeeda waxay noqon kartaa baa yiri ka dar oo dib u dhal. inta marka laga gudbo madaxweynaha Mareykanka ayaa galabta hadal ka jeediyay aqalka cad. wuxuu yiri dadka reer Iran guryihiina jooga sabab amni dagaal baa socda. dadku marka arrintan ka faaloonaya waxay leeyihiin madaxweynaha wuxuu la yaabay wixii la filayay meesha inaysan ka socon. maalintii la dilay Ali Khamenei waxa la filayay dadku intay banaanka u soo baxaan mudaharaadaan xarumaha dawladda la wareegaan la yiraahdo wadanka anaga maamulayna fawda ay dhacdo mushkiladna ay dhacdo dawladda la rido. laakiin waxa ka duwan baa socda ilaa iyo Sabtidii ilaa iyo caawa meel walba banaanbax baa ka socda. Iiraaniyiinta marka ay maqleen warkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Tehran bay soo dhoobteenba.
iyo magaalooyin kale waddanka ah haddaba muuqaalkan aynu daawanno gaar ahaan fagaaraha ku yaal magaalada dahraan iyo dadku sida isugu soo baxeen marka waxaan leeyahay madaxweynaha Mareykanka sababta uu leeyahay dagaalkan waxaan filaynay inuu qaato ilaa 4 ugu badnaan 4 asbuuc ama 4 toddobaad wuuna ka dheeraan karaa oo sidoo kalena xogayihiisii gaashaandhigga ama dagaalkan uu leeyahay dagaalkan waqti dheer buu socon karaa waxaan leeyahay calaamadahan ayaa muuqda waxaaba leeyahay ban yahay dadkii mudaharaadii iyo bishii hore xaggee aadeen baa layiri oo wadooyinka dhoobnaa waa leeyahay ban fariin buu diray madaxweynaha Mareykanka magaaladii oo dhan waxay noqotay gawaari la yarar baa shidan wax mataqaana cabsiya ma jirto duqeyn iyo dagaal ayuu jiro oo galabta si xun loo duqeeyay magaalada Tehran ayaa waxa leeyahay haddana dadkan reer Iran sidaas ay sameynayaan arrimaha marka waxa lagu macnaynayaa dadkan inay sababta ku qornayma buuggooda waxa leeyahay isdhiibid waa tahay waynu arki doonaa wixii ka soo kordhay arrimahaasi dhanka Israa'iil waxa leeyahay gobolka jaliilta dhanka galbeed ayaa hadda waxa laga maqlayaa seeriga digninta ka bixiya arrintan waxay u muuqataa baa leeyahay in Hizbullah ay adeeganayso oo diyaaradaha droniska ay ku adeeganayso waliba gantaalo militariga Israa'iil sidoo kale waxay soo saareen ogeysiis ku socda qaybo kamid ah magaalada Dahraan dadka oo ay leeyihiin aagaas hal iskaga fogaada gaar ahaan xarunta raadiyaha iyo telefishinka oo la filayo in la duqeeyo macnaha waxay tahay dadka meel xog laga siiyo in la waayo raadiyaha dawladda la aamusiyo telefishinka la aamusiyo marka xaaladdu siday noqoto waynu arki doonaa warkaas ayaa hadda soo dhacay intii barnaamijka ku jirnay waayahay intaan ka bixin waddanka Mareykanka aan dib ugu laabanno arrinta ku saabsan duulaan lagu qaaday Iiraan oo dhanka oo dadkii Mareykanka qoorta u siray waxa la yiraahdo qaan aad baa looga digaya arrintaas marka dabcan waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ka soo baxa iyo waxa khibrada ay ka tiraaday warbaahinta inta ayaa caaw ku soo gabagabeynaya barnaamijka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo